siyaasi Kenyan oo ka shafay inay ku fashilmeen qorshihii ay ka rabeen Soomaaliya guusha qarankeena iyo dhawarjabka Kenya. Siyaasigan ayaa si cad u sheegay in diblomaasiyadda iyo dagaalkii qaboobaa ay la galeen Soomaaliya guul ay ka gaartay dhanka Soomaaliya balse Kenya ay ku jabtay. warbixintan galwareed maanta oo Isniin ah ayaan saaxiibayaal ku eegaynaa cabaadka iyo catowga ka soo yeeraya siyaasiyiinta Kenya baaq loo diray madaxweynaha dalkaasi iyo ciidamada Kenyaatiga ah oo laga saarayo gudaha dalkeena Soomaaliya. balse marka hore saaxiibayaal si share gareeya muuqaalkan idinkoo like iyo love na saaraya si aan u guda galno faainta xogtan xasaasiga ah. waa hagaag aynu ku bilownee siyaasi Kenyaati ah ayaa banaanka keenay catowga iyo ciilka ay u qabaan Soomaali isagoo sheegay inay ku fashilmeen dhammaanba qorshayaashii ay ka lahaayeen gudaha dalkan Soomaaliya. siyaasigan Kenyaatiga ah oo la yiraahdo Matiang'i ayaa afka furtay una iscelin waayay. wuxuu yiri Soomaaliya way naga adkaatay, ciidamadeennii waa laga soo saarayaa, qaadkeennii waa laga diiday. waxay Soomaaliya heshay saaxiibo awood leh gedo inaan qabsano ku fashilanay buu yiri siyaasigan Matiang'i oo Kenyaana si aadan u dhaleeceeyay dowladda Kenya madaxweyne Uhuru. wuxuu kaloo sheegay in ay ku hungoobeen damacoodii ahaa inay qaataan qayb ka mid ah badda Soomaaliya. kiiskii badda iyo go'aankii ICJ ayuu soo kale ku tilmaamay toogashadii ugu dambeysay ee Soomaaliya u geystay Kenya. cabaad ayuu afurtay siyaasigan. waxa uu sheegay in meel walba Kenya looga adkaaday, xitaa fagaarayaashii caalamka ayuu sheegay in Kenya ay ku jabtay, isla markaana daadka la raacsiiyay dhammaanba qorshayaashii Uhuru iyo dowladda Kenya. waxa uu sheegay inay jireen qorshayaal cadcad oo la xiriirtay gobolka Gedo oo ay rabtay Kenya in si dadban ay ku xalaaleysto ama gacanta ay ugu dhigto. hase yeeshee tan iyo markii ciidamada la geeyay gobolkaas sanadkii 2020 ilaa maanta ayuu sheegay inuu yahay gobol aysan fooda geli karin ciidamada Kenyaatiga ah, aadna uga baqayaan ciidamada Soomaalida ee ku sugan gobolkaasi. waxaa kale oo uu sheegay in qorshayaashii Soomaaliya ay ka rabeen sida inay iska horkeenaan dowlad goboleedyadii dowladda dhexe ay ku fashilmeen. siyaasiyiin ay adeegsadeen si dowladnimada Soomaaliya loo dumiyana ay u shaqayn waayeen, waxaana ay tilmaameen in Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dagaal walba ay la galeen Kenya ay ku jabeysay. xitaa waxa uu qirtay siyaasigan la yiraahdo Matiang'i in xitaa fagaarayaasha caalamka Soomaaliya ay uga guuleystay Kenya sida Midowga Afrika, qaramada midoobay, ururada dowladaha iyo meelo kale. ayuu sheegay in xag diblomaasi ahaan lagu garaacay Kenya oo Soomaaliya ku gacan sareysay. aad ayuu u bogaadiyay dowladda madaxweyne Farmaajo tallaabooyinka istaraatiijiga ah ee ku xakameeyeen weerarada qaboobay Kenya uga imaanayay iyo guusha taariikhiga ah ee ka gaareen Kenyaatiga sida hadalka uu dhigay. waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya Soomaaliya ay noqonayso qaran awood leh, isla markaana wax la qaybsan kara dalalka kale ee caalamka iska badda kuwa Afrika. waxa uu tilmaamay in qiyamkii, sharaftii iyo geesinimadii Soomaaliya ay soo laabatay, damac walbo ay ka lahaayeen Soomaaliyana markan uu dhimanayo. waxa uu dalbaday Matiang'i in la soo saaro ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha dalkan Soomaaliya, maadaama qaadkii Kenya laga diiday Soomaaliya. haddana ay mar kale muddo dul hoganayso Kenya oo ah in ciidankeeda laga saaro gudaha dalkan Soomaaliya. xaalad jahwareer ayuu ku sugan yahay wadankan dhaca Geeska Afrika, dariskana la Soomaaliya. dagaal walba uu qorsheeyayna uu ku guuldareystay, waxaana hadda qiraya arrintan siyaasiyiinta iyo dadka caanka ah ee Kenya u dhashay. haddaba daawade, adigu maxay kula tahay? sideese u aragtaa siyaasigan iyo hadalka xanafta leh ee ka soo yeeray? fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay daawade ku reeb qaybta commentiga. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.